salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkanina waa taar t v daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegne. waa warkeennii labaade ugu horrayn xogaha naga soo gaadhaya dalka yukrain ayaa sheegaya in dukum daakum laga dhigay wixii dab iyo baaruud ku rabaalsanaa saldhigyada ciidamada kiyef ee gobollada bariga dalkaasi ka gadaal markii uu ruushku majaasi u nacay gamasyo daran oo maridaysan. waxaa la arkayay uurada qaaca iyo weliba qiiqa oo cirka isku xidhay iyo weliba maja oo guud ahaanba u beelaysaa sidii duur ama digo qaraf la sudhay tiyo afarta dacalba laga hubiyey wixii hub halkaasi yaallay. goobtan oo ahayd meel dhir lagu hadwoodilay islamarkaana aan si yar loo dhaadi karin ayaa guud ahaanba noqotay digada iyo dambaska. dowladda ruushanka ayaa ku baantay inay sidoo kale ka ilka xaydhaysatay ciidamadii dalka yukrain ee agahaasi gowdiday. meeshan maanta beledu ka dhacday oo ku taalla gobollada dhaca bariga dalka yukrain ayaa dharaartii labaad oo xidhiidh ah dabraweerar lagu ekaysiiyey halkaasoo uu ka dhacay haraawe mood iyo noolba leh. afhayeenka xukuumadda mooska oo maanta gadiidkiisa soo galluubay meel halkeera ayaa ku dhawaaqay inuu ruushku galay kalkii labaad ee ka dhan ah diriirta uu ku bacaraarinayo colka u dambaaba wiilka haatan bayse dhabadka ah hebelkay dilindilqo gaar ahaana xoogagooda raacda reebka ah ee ku sugan gobollada bariga dalka yukrain. wuxuu sheegay in goor noolba kiyef ku foogan tahay sidii ay garabka iyo cabshooda ugu dhigi lahayd dalka ruushka ee nabadda lagu cawsanayo gaar ahaana halka uu ka onkado tumaalka qoortiis caddaatay ee bilaadimiir. docda kale dowladda ruushka ayaa ku warrantay inay reer bogox ahaayeen kuwii soo amaamuday weerarkii shalay lagu soo qaaday magaalada moscow kaasoo ay fuliyeen diyaarado aan haybtooda la aqoon iyo weliba geesta ay dalkaasi ka soo huruusheen. ruushka ayaa ku goodiyey inaanu gacmaha ka laaban doonin waxa ay washington la wado xukuumadda kiyef gaar ahaana waxtaarashada hiilka iyo hubka ah ee ay goor kastaba laba dhigayso gudaha dalka yukrain. dacalka kale moorada colaadeed ee dalalka kosovo iyo serbiya ayaa la sheegayaa inay haatan hadaayeynayso halkii ugu darnayd. dowladda serbiya oo ay luga adag u yihiin qolyaha duubi wadaagta daanbari ayaa la damuuninaya inay ciidamo ku daabulayso qaydka ay la wadaagto dowladda ay ka dukaroon tahay ee kosovo iyadoo dhaar iyo tuxun ku martay inay cagta marin doonto wixii docdooda isu soo majiira amaba soo eega. adduulka gaalaad ee laga tirada badan yahay ee ku dhaqan dalka kosovo balse hayb ahaanta ka soo jeeda dalka serbiya ayaa la sheegayaa inay bannaanbaxyo waaweyn ka dhigayaan goonyaha iyo bartamaha meelaha ay ka ceelhayaan iyagoo ku doodaya in la tujileecsaday isla jeerkaasna loo taag sheegtay. dhanka kale iyaguna huwanta biirabiiraha ee nato oo ay xubin ka tahay dowladda kosovo ayaa sheegay inay col gaadhsiin doonaan docdan iyo dalka ay serbiyaanku u cargaagtamayaan ee kosovo. gaashaanbuuta nato ayaa bitisay inay serbiya aanay wadin diriir lagu soo qaado dalka ugu da'da yar qaaradda yurub balse ay meesha ku raadgadanayso duubi wadaagta isku dhoonka ee daanbari gaar ahaana dalka ruushka oo ay qolyahan col xiira ahaayeen. duulka waxunaafadha ayaa tibaaxaya in moorada majaasi aanay saaloonayn tiyo laga baqa qabo in dharaaraha soo socda labada dhinac soodhka isula galaan maadaama oo ay haddaba isugu tugubayaan olo booca. iyaguna wararka dhiilada leh ee nagaga soo jirfanaya dalka suudaan ayaa sheegaya inuu sii labalaxaasaday islamarkaana ay daaq tagtay dagaalkii iyo diriirtii ka adurdhabayay dalkaasi taasi oo u dhexaysay ciidanka qalabka sida ee suudaan iyo weliba gaarayacuunta rsf. weerarro geystay haanraawe iyo haydaarooyin aan yarayn ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhaceen magaalooyinka waaweyn ee labada ciidan isku hor fadhiyaan tiyo uu meydku iyo weliba dhaawacu hadhbeelay. labada col ee meesha isku haynabaya ayaa la bitinaya inay soo adeegsadeen dabka iyo baaruudda waxkumaada iyadoo rasaasta habowga ahina ay dadka raadsanayso. habaqlaha lafahooda la firxaday ayaa la soo werinaya inay sidii qudhaanjada isu dabahayaan iyagoo afka saaray seerimooyinka nabadda lagu tuhmayo ee dalalka jaad etoobiya libiya iyo xataa eritrea. dacalka kale ciidanka uu budhka u tuuro ninka shaarubaha miiqay cabdifataax al burhaan oo maanta gadiidkii u diminjaaqay idaacadaha wararka maacuudiya ayaa sheegay in guud ahaanba ay ka baxeen daawadii iyo wixii lagu soo kala qaytay magaalada jidda ee dalka sacuudiga gaar ahaana xabad joojintii ay carabtu garh ka haysay taasoo ku dambaysay qosolku jab. waxay sheegeen inaanu jirin wax iminka kadib ay xeerin doonaan iyagoo ku toodhooda inay si daran u naafayn doonaan gaarayucuunta laga fadhihi waayey ee rsf. waxaalaha qaar ayaa sheegaya in madaxda suudaan ay tibix ku heleen qorshe dhabarka lagaga wareemayo tiyo nabadduna ayba iska tahay xeelad la maagan yahay in lagu dago ama ay isdhigtaan.
haddii aynu u jalbaasino docda Puntland wararka ka imanaya ceelka Garowe ayaa sheegaya in la isaga carro qaaday duulkii waayahanba birta isu afaysanaya Siciid Cabdilaahi Deni iyo weliba qoorweynta doorasho doonka ee Oosha Ciise Maxamuud gaar ahaan 4 nin ee beesha Hurquwaaxiya. ciidanka ilaalada madaxtooyada Puntland ayaa lagu soo waramaya inay maanta kala ooteen gudaha magaalada Garowe siiba dhabaha taga cabuudha looga taliyo maamulkaasi. ciidankan oo ku dooday in la sii waayay waxoogaygii garaamka iyo qadaadicda ah ee lagu soo yuubi jiray ayaa ku dooday inaanay laaban doonin teeriya inta wuxuuda meel loogu sheegayo. xogaha uu wargaleenku nagu soo simay ayaa biniixinaya in arrintu sidaa aanay ahayn oo ciidanku ay yihiin kuwa jab la maagan isla jeerkaasna u toogahaya sidii ay ugu daadan lahaayeen dergadda madaxtooyada Puntland oo haatan uu ka maqan yahay ninkii ka caawin jiray Siciid Cabdilaahi Deni. wararka dacogaysiga ayaa intaa raaciyeen mucaaradka Puntland ay waayahanba maamudayeen tabtii meesha loo dhaafin lahaa ninka tarahooda u soo dhigtay Siciid Deni iyagoo ugu dambayntiina guddoonsaday in la qabsado meelaha kamakacdada ee ceelka Garowe gaar ahaana cabuudha madaxtooyada meesha bowradaha la dhigo ee bangi la yidhi xarunta wasaaradda maaliyadda arrimaha gudaha warfaafinta iyo goobaha kale ee loo arkay inay yihiin kamakacdo. magaalada ayaa la sheegaya inay danafnaynayaan ciidan aad u badan oo soo galay iyadoo colkana uu hoggaan looga dhigay ninka lagu magacaabo Korneel Jimcaale oo hore uga mid ahaa ciidankii Puntland ee u doolaalada tegay gobolka Sool kaasoo sidoo kalena ciyoon dib uga soo qarbooshiye Laascaanood. Siciid Deni oo loo sheegay moorada aan saaloonayn ee ka taagan ceelkii Garowe ayaa soo dhaafi waayay magaalada Boosaaso oo ay dadkiiba ka xagaabaxeen. docda kale ciidanka Puntland ee gaarka ka haya gigida ay boodhka ka kiciyaan diyaaraduhu ee Garowe ayaa isla maantaba hangool lagaga baaciyey ninka lagu magacaabo Khadar Maxamuud Faroole kaas oo ka mid ah 4 nin ee wadnaha u galay Siciid Deni. wiilkan oo sibraarka u biyeystay magaalada Muqdisho ayaa gebi ahaanba looga dhaarmaray inuu fooda geliyo garoonka diyaaradaha Garowe. Khadar Cabdiraxmaan Faroole oo magalaabta u deexday idaacadda Faranji ee BBC ayaa sheegay in wax daran lagu falay balse la isaga iman doono oo weliba laga naasnaasin doono. wuxuu sheegay inuu Siciid Deni ku dambeeyay nin aan qori caaradii mooye arrin kale doonaynin taa aawadeedna ay la walaaqan doonaan waxaan uu u dhalolayo. wuxuu ku baanay inaanu waayin cudud iyo ciidan uu ku jiidho qolyihii is hortaagay balse uu u tudhay dadkii maxasta iyo maatida ah ee garoonka ka dhoofayey. qolyaha toctociya siyaasadda Puntland ayaa hilaadiyay inuu maamulkaasi qarka u saaran yahay haadaamo uu ku shalwan doono gaar ahaan halalow yahay booqan soo duduuci kartaa colaad meel dheer ka ridi kartaa tiyo dharaaraha soo socdana wadnaha farta lagaga hayo in birta la iska hadlo. walaalkaad nagala socotaan waa TAR TV iyaguna qaar ka mid ah ciidamada Somaliland ee ku sugan faramaha hore ayaa cabasho ka muujiyay askari bishii May ee gugii 2022 shil gaari ku galay agaha Caynaba. waxay sheegeen ninkaasi oo dhaawaca uu xidhan yahay sidoo kalena iyaga looga fadhiyo magta 2 askari oo shilka ku halaystay. waxay ka duraanteen xukuumadda inay wax kala qabato arrintaasi maadaama uu ahaa askari qaran oo dalka u adeegayay isla jeerkaasna aan markuu wax geysto ama wax ku yimaadaan aan la odhan iska dulqaada. labadii walaalihii ahaa waxa weeye intii kale madaradii ahayd wateentee dalka tumaday waxa weeye family group baan nahay waxa weeye manihin ciidanku qaranka waxa weeye guutaba laba ka tiin inta kale soo markaa jifidin nahay waxa weeye jiidan difaacayno inta laga dhimataan tiro lahayn inta laga dhaawacaan tiro lahayn waxa weeye haddana waxa weeye la dhaho marka waxa weeye dar la wax noo helaan la dhaho reerkiini la aada maalinta waxa weeye ciidanka qaranka la difaacayo waxa loo dhimanayana aan askar noqono lama qabato labadaas madaxweyne iskastoo ay qusayso arrinkaas ogaal siyaasiyiin xildhibaano wasiiro madaxweyne ku xigeen iskastoo arrinkaas qusayso waxa ka codsanaya inay waxa weeye cadaaladda u eegaan waxa weeye askari buu ahaa amar diido kuma shaqeynin shaqa qaran buu shaqada ciidanku waayay waxa weeye ciidanka qaranka waa taqaano jiidis oo difaaca maanta aan xirayno hawlgalkiisa ugu weyn waxa weeye booliska shaqadiisa ugu badani waxa weeye ama waxa weeye maanta la hawlgalkiisa ugu weyn u qaada waa maanta umayda waxa weeye ka shaqeynaya maanta qaranka. barbarka kale waxaa warbaahinta soo tuusaday waxgaradka beelaha dhulbaanta ee ku sugan deegaanka Siixawle kuwaas af labadii yeedhay. waxay sheegeen inay maanta dhalaar ka caddaatay argagixisadii la sheegayay inay soo galeen Laascaanood. waxay du taagnaayeen qolyihii miinadu la kacday ee doonayay inay kala gooyaan jidka halbowlaha ee mara deegaanka Yogoori gaar ahaan taabsinta Siixawle. waxay u soo jeediyeen dadka Soomaaliyeed inay arkaan oo maqlaan sida loogu soo waariday weeraradii qorshaysnaa ee argagixisadu ka waday gobolada dhexe ee Soomaaliya. waxay bidiyeen qaraxyadan lagu waday gudaha ceelka Laascaanood. odaygii qabayaas siyo dhulbaantu halgamayaa agar annaga dhulbaanta annaga u dhalanay dalka waa ka wiilka rag 4 ilaa 3 loo kala garan waayay meedkooda ilkooda waday lama tira ay leeyihiin lama sheegi karo ninkaas iska sii haysta qaadkiisa sare isku yaal intii kale hilibkeedu wuxuu wareeyay aydatan madaxyada ilaa 3 waa la arkay qoryaha waa la arkay war way muran beeshay war waad arkaysaan war hadda dad islaam aliin alla yahay ka tashada
war ka weyn wuxuu waxa la mooday maaha war waa waxaanu sheegaynay war baan kuma haasawno taanood dhibtii ka jirtay ummadii dadka leeyaysay wixii ku saxaabaya ummadda inay tahay taas markaati ka imisaanu inaga islayna lubaanto imisaanu reerna saano inaga islayna cidina ma laysiyaan kibirka day inta ay waryarada waxaan ku darnay moog wax weydiin ogaal ka sheegnaa maxamed aan dirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante